markay soo dhowdahay afuufidda suurka qiyaame wuxuu alla weyne soo dirayaa dabayl ama riixaan aad u macaan wuxuuna riixaasi alla weyne amrayaa inaysan kaga tegin dunida dusheeda qof qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo iimaan ah oo la eg quraansho maxaa yeelay marka ay qiyaamaha dhacayso waxaa iskugu soo haraya dunida inta ugu dullisan uguna sharta badan qalqiga uu alla abuuray oo idil intaasi kadib wuxuu alla weyne malagga israafiil amrayaa inuu afuufo suurka koowaad waxaase markaasi dhimanaya wixii dhulka iyo cirka ku sugnaa intuu alla weyne doona mooye sidaasina waxay dunida ahaan doontaa 40 sano oo kaamil ah korkeeda kuma sugnaan doono qof nool wallaahi kuma sugnaan doono korkeeda jinni iyo insi iyo malagba ilaa aan ka ahayn alla weyne dhammaan dadka oo idil waxay ka hoos mari doonaan ciidda ma jiri doonto maalintaasi maraykan ruush ingiriis jarmal soomaali sacuudi iyo wax walba oo la mid ah maalintaasi markuu alla weyne ka dhigi doono dhulka si aan horay loo arag wuxuu malakulmowdku ku dhihi doonaa alla weyne malakulmowdow ayaa soo haray oo qalqigayga ka mid ah insaankii waa ay dhinteen rabbigaygiyow jinnigiina waa ay dhinteen dhammaantood malaa'igtiina waa ay dhinteen rabbiyow dhammaantood waa ay dhinteen malaa'igtii insigii iyo jinnigii iyo wax waliba oo cirka iyo dhulka ku sugnaa waa ay dhiman doonaan maalintaasi ilaa aan ka ahayn malakulmowd markaasuu alla weyne weyddiin doonaa malakulmowd ayaa soo haray oo qalqigayga ka mid ah wuxuu dhihi doonaa ilaahayow allow waxaa soo haray jibriil mikaa'iil israafiil iyo weliba aniga addoonkaaga ah hortaada taagan markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa malakulmowd ka qaad nafta jibriil malakulmowdow markaasuu ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa yaa soo haray markaasuu ku dhihi doonaa mikaa'iil iyo israafiil iyo aniga addoonkaaga ah markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa ka qaad nafta mikaa'iil malakulmowdow markaasuu ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne haddana wuxuu ku dhihi doonaa ka qaad israafiil nafta malakulmowdow markaasuu haddana ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne jalla jalaaluh wuxuu weyddiin doonaa malakulmowd cidda soo hartay markaasuu ku dhihi doonaa ilaahayow aniga addoonkaaga ah oo malakulmowd ah ayaa uunkaagii oo idil ka soo haray markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa dhimo malakulmowdow adigana dhimo malakulmowdow dhimo malakulmowdow waa uu dhimanayaa malakulmowd markaasi waa uu dhimanayaa malakulmowd markaasi markii uu dareemo xanuunka nafta malakulmowd wuxuu dhihi doonaa allow awooddaada iyo isla weynidaadan ku dhaartay haddii aan ogaan lahaa inay sidaani u daran tahay nafta waxaan kaa dalban lahaa inaad isla kay cafiso oo addoommadaada iyo qalqigaaga guud ahaan ee aan nafta ka soo qaaday waa uu dhintay malakulmowd waa uu dhintay malakulmowd markaasuu alla weyne dhulka soo fiirin doonaa iyadoo haawanaysa markaasuu ku dhihi doonaa alla weyne adduunyooy aaway webiyadaadii aaway badahaagii aaway geedahaagii aaway qasriyadaadii aaway boqoradaadii aaway boqorada carruurtii ay dhaleen aaway kuwii kibirka badnaa aaway carruurtii kuwa kibirka badnaa aaway kuwii aniga la'aantayda inay noolaan karaan iska dhigay aaway kuwii ii shariig yeeli jiray aaway 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 waryaa maanta xukunka iyo boqortooyada ila leh kuma maanta xukunka iyo boqortooyada ila sheegan kara adduunyoy aaway kuwii kibirka badnaa iyo carruurtoodii aaway boqoradii iyo kuwii ay dhaleen aaway kuwii kala telin jiray aaway kuwii ka telin jiray aqalka caddaa aaway kuwii ka telin jiray karamlinka aaway kuwii ka telin jiray madaxtooyadii aaway aaway halkay ka baxeen yaa xukunka iyo boqortooyada ila leh waryaa maanta xukunka iyo boqortooyada ila leh markaasuu alla weyne isaga isku jawaabi doonaa lilaahi alwaaxidi alqahaar maanta waa maalintii xukunka cadaaladda ahayd ee dhacaysay maanta waa maalintii xukunkii cadaaladda ahayd dhacaysay maanta waa maalintii xaqa iyo baadilka la kala saari lahaa ma jiri doonta maalintaasi maxkamad shacab
mid federaal ah iyo mid dadka lagu dulmiyo iyo mid kacaan maanta waxaa jiri doonta maxkamadda alle oo keliya huwa alwaaxid huwa alwaaxidu alqahaar huwa alwaaxid huwa alwaaxid markii magacaaga lagu dhawaaqo oo uunka hortiisa oo idil aad soo istaagto oo aad ku dhahdo allow maxaad iigu soo diri waysay digniin oo aan ku soo xaadiri doono kalfadhigan maanta ah adduunyada aad u qabatay